أنا ولا الكيا كتير dadku waa is dhaleen waa isla dhasheen ayaa waxa lagu qabsaday jawhar ciyaal ku aftoobteen oo gabadha la hel ah sababtoo wax kale oo la qabanayo male maanta waxay noqonaysaa madaxweyne wasiir xildhibaan kii dambi kale in walaalkiis la qabsado sababta farmaajo iyo faad baa shakada bilaabay Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kulanti wanaagsan mar kale saaxiibayaal tan intii la waayay Ikraan Tahliil Faarax sarkaaladii ka tirsanayd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliyeed ee magaceeda loo yaqaan NISA waxa soo baxay tuhno bulshadiina waxa galay jahawareer mar la yiraahdo Ilhaan waa ay nooshahay Ikraan waa ay nooshahay iyo mar la yiraahdo waa ay dhimatay dadka qaar ayaa waxay aamin leeyihiin dhimashada Ikraan Tahliil Faarax oo lagu eedeynayo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo ay ka tirsanayd inay dileen xildhibaan ka mid ah xildhibaanada golaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka hadlaysay goob ay dumarku isugu yimaadeen magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegtay inay ka dhaadhici laadahay oo ay aamini leedahay inay geeriyootay Ikraan Tahliil Faarax sarkaaladaasi ka tirsanayd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka aniga dadka aaminsan baanahay Ikraan inay dhiman waa ka xumay hooyadeed ina ku hordho laakiin ani ma aaminsani dhiigayga damiirkaygana ima siinayo sababta iyadoo soconaysa gaari baa laga dilay shaqadeedii bay gashay haday dhimatay ila kuwii horeba waa la aasi jiray nimanka waa keeni lahaayeen aniga ma qabo in ilaahay hawna xariisana nala ku dadka lagu dul dhaho samirsiin beenana in la dhaho anigoo ka xun oo qaali qalbigeeda dhowraya xildhibaanada oo hadalkeedii sii wadata ayaa waxay sheegtay in tacadiga ka dhacayay magaalada Muqdisho aanu ku ekeyn oo kaliya dadka shacabka ee xataa qaar ka tirsan dawladda federaalku ay dhibtan qabeen oo aanay hayn dhibkaasi loo geystay Ilhaan oo kaliya laakiin xildhibaanada lafteedu ay sheegtay muddo 2 sanadood inaanay gurigeeda oo madaxtooyada ku yaal aanay gali kareynin waxaana ay carabka ku dhufatay gudoomiyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir labaad waxa rabaa in ay macquul tahay oo waxa ay wax ka daran ay dhici karaan arin ani igu dhacday anoo xildhibaana oo aan ahay wiilcad qabiilada yararka oo 25 ka baan ahay ciidan ma qabi dad maxal ay garb istaagnay oo bahalkeenay ma qabi can you believe inay igu dhacday gurigaygii oo madaxtooyada dhexdeeda ku jira oo aan kira ilaa hadeer bixiyo in aan 2 sano gurigayga aan galin yaa rumaysanaa horta يويها قف كروميسنا قف مسكين قبر ير أو دوري صدق اللي بتجرى الله ساق بس لا واحد لا أو مدي عكرته أو هبلو ويدعد ورأنا يقول دعد أنا ما أنا جوري قلواي أو بناك رير لنا جوري أيوة يقانن علابتي دي أنا أنا بقول ده أنا ما قلي كره وحاسنا فهد يتشيس كلنا يفرماتها كأنه xildhibaanada ayaa waxay cadaadiskan kala kulantay kadib markii ay la fikir noqon weyday ama wadada ay raacayaan mid ka duwan ay raacday saaxiibada Villa Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed madaxweynihii hore waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya iyo gudoomiyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kuwaasi oo ay kala kulantay cadaadis kadib markii ay u tiriyeen in ay kooxaha mucaaradka ka tirsan tahay waxaana xildhibaanadu ay sheegtay in dhibkani uu yahay dhib ay reer Muqdisho mar hore accept gareeyaan ama ay aqbaleen oo loo baahnaa goor horeba in ay ka ficil celiyaan isla markaana ay muujiyaan sida aanay u qaadanaynin ama ay uga soo horjeedaan cid kasta oo kamacda in awoodda sare ee dalka ee Villa Soomaaliya ay ku takrifasho waa sida ay hadalka u dhigtay ayaga keenay heer waxay gaareen xildhibaan kale oo ila degan gaarigeeda inuu soo galo سعدية عصعدان الجارية دتك اللي جعليه مرينا يباني سنهاي مرخانتيه كين مركا وروحان غير مقدشو وحا أصبت الجريسوا خلطة مركا الله هلا sababtoo ah marka waxa dhahay weesh qowrac dibga ku qosay xildhibaanada oo aad u xamaasanaysnayd isla markaana la hadlaysay qaar kamid ah haweenweynaha magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegtay in aan cidna xoog lagu qabsan kareynin isla markaana loo baahan yahay in laga dhiidiyo falalka tacadiga ah ee bulshada qaybaheeda kala duwan ay kala kulmayaan maamulka Villa Soomaaliya ama saaxiibada Villa Soomaaliya waa Maxamed Cabdullaahi Maxamed madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday farmaajo iyo waliba saaxiibkii gudoomiyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaana ay sheegtay sida Falastiin ay isaga difaacdo Yuhuudda dawladdaasi gumaysiga si lamida in loo baahan yahay in dadku ay gacmaha isqabsadaan isla markaana hablaha meesha jooga waxa ay kula talisay inan kasto oo isdhigataa inay mari doonto dariiqii ay bartay sarkaalad Ikraan Tahliil Faarax oo iyadu ka tirsanayd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan NISA waxaana ay ku boorisay in loo baahan yahay in hadda wixii ka dambeeya dadku ay meel ka soo wada jeestaan أنا وحن قبع إنتان بقى وحك بدلي كرتا إنتان بقى وحك بدلي كرتا
falastiin baa la qabsan waayey oo aad ogtiin inta quwadooda la dirartay ma fahad yaasiin iyo farmaajo waa waxa leedihiin muqdisho ayaga wada xukumi kara hadda raali laga ahayn aniga maanta laga bilaabo haddii aad dhiiggiinu run yahay gabdhaha yararka quruxda badan oo wajiyadooda hor taagan yihiin ikraan meesha la geeyaa la geynaya gabar yaro inta imaanaysa ay gacanta u duuban tahay baa jira in la dilo shalayto gacanta uun bay ka jabtay ayadaba ikraana lagu dari lahaa xildhibaanada ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay inay jiraan hablo kale oo iyagana gacan ka hadal loo geystay magaalada muqdisho oo saraakiisha nabad sugiddu ay waxyeelaysay waxa sidoo kale ay baaq u dirtay bulshada caalamiga ama waxa loo yaqaan international community-ga oo ay sheegtay in arrinkan ay soo dhex galaan iyadoo ku lad qabsatay kuwa fadhiya goobta loo yaqaano xalane ee ku taala duleedka magaalada muqdisho isla markaana waxa ay ku dartay hadalkeeda in ay diyaar u yihiin banaanbax ballaaran oo ay ku taageerayaan cadaaladda isla markaana aanay ka baxayn in muddo kastoo ay qaadanayso ay fadhiyaan banaanka ilaa iyo nimanka ay eedaysay ee Chiis Fahad Yaasiin iyo kuwa la midka ah ay qiranayaan dambiga ah in Ikraan Tahliil Faarax sarkaaladaasi ka tirsanayd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranku ay gacantooda ku baxday la waxay la ani waxaan leeyahay international community horta haduuba wadanka joogo oo muqdisho ee xalane ay tahay meel dadka inta nacaawinaya ay daacad ka tahay annaga waxaan u baahanaa caawin wadadaas aan istaagayna mana ka dhaqaaqayna todoba bari annaga waa fariisan karnaa todoba bari waa joogi karnaa timir iyo biyo camno laakiin waa in la keeno oo la dhaho war Fahad iyo kulana Chiis soo istaagan inta hadheen gabadha annaga qalanay gabadhaas qalbiga u qaboojinayna waxaan leenahay gurigaagi aad walaalay oo gabadhi waa dhimatay laakiin gabadhaad in anoo gaari u jeedaan ka haystay haddana ma hadlaayo gabdhihii yaryarka ay saaxiibada intay soo istaagaan gacmaha idinka jijibinayna adeeryaalow sanadka hadda la joogo ma baha meeshaan joognay wadan kalaan joognaa meel kalaan joognaa wallaahi inaysan ahayn muqdisho inta in ka badan wax loo adkaysan xildhibaanada ayaa waxay ka dhawaajisay arrin ugub ah oo aan hore looga baran siyaasiyiinta Soomaalida in siyaasiga mucaaradka isla markaana aan la fikrahayn siyaasiyiinta kale iska soo horjeedaan la ugaarsado ehelka ama qaraabadiisa dhowdhow iyadoo oo sheegtay markii loo taag waayay ama ay ku kari waayeen inay la afkaar noqoto qolada filla Soomaaliya maamusha ay walaalkeedu ku sugan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe la afduubtay si iyada loogu cadaadiyo inay qaadato fikirka ay aaminsan yihiin madaxda ka talisa filla Soomaaliya banaan ma istaagi karno baabuur ma raaci karno meel walba qarax baa maalinba dhacaya gaariga waa aragtay sidoo u soconaya darbi walba waa xiran oo qarax yaa keenay oo soo dajiya annagii baaba gaariga gudbi leh aniga waxaan rabaa oo kale inaan inta ku sheego maalin dhaweeto dhalinyaro yar yar oo masaakiina ani wiil walaalkay ku jiray dadku waa is dhaleen waa isla dhasheen ayaa waxa lagu qabsaday Jowhar ciyaal ku afduubteen oo gabadha la hel ah sababtoo ah wax kale oo la qabanayo male maanta waxay noqonaysaa madaxweyne wasiir xildhibaan kii dambi kale in walaalkiis la qabsado sababta farmaajo iyo Fahad baa sheekada bilaabay saacadigan ay soo bandhigtay xildhibaanadu ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa ee ay soo bandhigaan madax ka tirsan golaha sharci dejinta ee loo yaqaan baarlamaanka kaasi oo dhibaato loogu geysanayo iyaga laftooda iyo waliba ehelkooda halkani waa barta kulanka barbaarta Soomaaliyeed aqoonsi TV anigoo Mustafa Xaaji Aadana haddii aad nagu cusub tahay ka mid noqo kumanka kun ee saaxiib ee aanu halkan dagal wadaagta ku nahay haddii aad hore nooga mid ahaydna mahadsanid kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaas iyo fi amaan Allah